waxaan soo jeedinaynaa inta xuduudta magaalada waa la yaqaanaa kiiloomitir go'an bay leedahay wixii ka baxsan waxay noqon doonaa dhul si sharci darro ah lagu degay markaynu ka soo bilowno harweyn wixii ka soo xigay xagga magaalada dhirta harweyn waxay ka bintahay bilicda magaalada Qardho cidna looma ogola inay geyso cidna looma ogola inay dhex tagto laakiin wixii banaanka ka sokeeya laga soo bilaabo ayaa ah seeraha deegaanka magaalada Qardho dhinaca kana waxa weeyaan ilaa falaxda magaalada wixii ka sokeeya oo dhinaca Garowe marka loo baxayo xagana ilaa magtuulada Kubo ilaa wixii ceelasha ama meesha ceelasha laga qoday oo wixii ka soo hooseeya waxa weey waa deegaanka loogu talagalay magaalada Qardho oo waliba jayga jaamacadda iridkiisa wixii ka xiga waqooyiga waxa leenahay marka dadka sida sharci darrada u degay dhulka ama iska qabsaday kiiloomitirada waxaan uga digaynaa in la qaadi doono oo la ballaaran waxaan u soo jeedinaynaa marka qof kasta inuu sii baneeyo dhulka danta guud maanta waxaan ku adkeynayaa qoryaha shacabka ama dadka dhar cad ciidamada ah ay la marayaan in magaalada oo lagu xaragoonayo suuqa dhexdiisa waxaan rabaa inaan u sheego inaysan bulshadu u qalmin arintaas inay sas gelinayso inay amniga khalkhal ku tahay waxaan u soo jeedinayaa marka qof walba inuu qoriga ku xisaabtamo guriyihiisa uusan ula iman meelaha shaariciyada iyo bulshada horteeda dawladda waxaan uga soo jeedinayaa hadda beersoolku kulli wuxuu ka soo degaa dhulka dalka wax ka soo galaan ama dekada ha noqoto ama meelo kale ha noqotee waxaan leeyahay haddii aan anagu dekadii uu ka soo degayo meeshina lagu iibinayo maxay ahayday baabuurta wax lagaga dhijin jiray oo ay tahay qof walba inuu lacag ka qaadanayo annaguna aanu fiiqayno hadda caqabad adag bay leedahay waxaan leenahay dawladda waxaan ku codsanaynaa bahalka kor nagaga joojiyo qodobka dhulka waxa ka hadlay gudoomiyaha degmada hal meel baan u noqonayaa aeroboortka gobolka Karkaar weey aeroboortku waa noolaanshaha fuyuujarka reer gobolka Karkaar fuyuujarkoodii weey inay wada ilaashadaan oo ay soo jeensadaan dhammaan guud ahaantiis oo ay og yihiin oo ayan ku xisaabtamin inay dan guud inay tahay ay ugu xisaabtaan mid gaar ayan ugu xisaabtamin baa laga doonayaa Karkaar fuyuujarka ugu weyn ee tiigsanaysa wuxuu yahay aeroboortkaas hadduu caalami noqdo gobolka Karkaar caalami buu noqonayaa hadduusan caalami noqonna gobolka Karkaar waligiis sidiisu ahaanaya maadaama ay sidaa tahay inuu caalami noqdo ay ku xiran tahay aeroboortka ku xiran tahay waxaanu leenahay annagu waxaan u ilaalinaynaa dantiisa guud baan u ilaalinaynaa dadku hadday laba noqdaan looma shaqeyn karo laakiin dadku hadday hal mid yihiin oo hal wada leeyihiin waa loo shaqeyn karaa marka waxaan leeyahay wadadaas hal wada u wada isticmaala oo meeshaas maxaan ku yiraahday hal go'aan kala haado laba la iskuma helo shacabkeenu laba iskuma helaan inay maamulka dhaliilaan oo yiraahdaan maamul aan waxba qabanayn baa jira iyo inay iyagu sharciga indhaha ka ridaan la iskuma helo waxaan ognahay dadkeenu inay boqolkiiba 70 ay xoolo dhaqato yihiin dadka xoolo dhaqatadana waxa aynu ku nool lahayna waa xoolaha haddii xoolaha hadaynu indhaha ka ridno oo dhulkii ay degaayeen ama dhulkii ay daaqayeen aynu guriye ka dhisno ama aynu xirmooyin ka dhisno ama aynu inagu oodanno haddii xoolo inoo noolaan maayaan inaguna waxaynu ku nool nahay waa xoolaha taas marka waxaan uga digayaa dadka garanaysa sidii gudoomiyaha uu ka hadlay degmadu dadka seerayaasha iska oodanaya waliba waxaan u sii digayaa dadka jaaliyada ah oo dibadaha ka yimaada oo lacagaha iskala ordaya oo dhowr boqol oo hektaar ah kala baxaya lacag oo meel ay sharci ka wataan aan la aqoon oo dooxadan iska oodanaya war jaaliyadaha dibadaha ka yimaada waxaan u baahanahay inay dalka wax ku soo kordhiyaan